السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كينا استحقالك البحنمة كلا الدول البحنمة الصومالية تاني يوروب يمريكان يميل والبا يخربها ودن أو نمت إن أنكسو قادن جرني استحقالك وحان ما أنت ربا إنان ماركتي توشك أن صارنو وأن سيفي عنو فاديسانو محيطة وحيابها أنك البحنمة أما علمك أما قونتا أن سيكرنو ضدكن وحيابها أنك الكفايدين تسكرنو ما كفايديسنا oo maaragtay badanaaba dadka joogi 30 sano 20 sano ma heleen faa'iido طبعا waxyaabo badan oo laga faa'iiday waxa kamid ah in caruurtii ay heleen isbitaal school waxbarasho fiican waxyaabahaas maadiga meel walba laga helaa laakiin waxa jira waxyaabo muhiim ah oo aan ka faa'iideysan loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano iyo waxyaabo aan inaan u faa'iideyno waxyaabaha aan u faa'iideyno waxa kamid ah in maadaama aan haysano diinta adduunka ugu fiican diinta islaamka cadaalad horumar wax walba meesha ay ka buuxdo inaan u gudbino diinta waa u baahan yihiin laakiin run ahaantii anaga ma u gudbino maxaa yeele anagii aqoonta u leenahay way yartahay qaarkeed inta taqaanana habkii loo gudbin lahaa ayaa naga maqan marka taana haddii aan u gudbino waa faa'iido weyn waxyaabaha haddaba aan rabno inaan ka faa'iidaysano oo aan ilaa hadda aan ka faa'iidin waxay tahay hab nololeedkooda horumarka ku dhisan waxyaabaha ay ku xun yihiin isqaawineynta iyo maaragtay macsiga isdhexgalka kalaabka qamriga waxyaabahaas waa wax loo jeedo oo ayaga u gaar ah oo adiga khasabku uga hedina qaadatid mana ahan wax inaad u dhawaata ay tahay marka laakiin waxyaabaha kaliya bini'aadamka lagu qiimeeyo maxaa yeelay isku diin ma tihiin waxaa lagu qiimeeyaa waxyaabaha ay ku fiican yihiin la soo qaataa waxyaabahaas si aan ugu faa'iidaysano مثلا waxaa ka mid ah in dadku aanay isku mashquulsaneen horumarka iyo shaqada inay jecel yihiin iyo in qofka shakhsiga Swedishka ama Hollandeska inuusan u baahnayn qabiil in hadduu mar baasaboorka waddanka haysto ay kaga filan tahay sidee lagu gaaray marka Soomaaliyana qabiilka ilaa iyo hadda 4.5 ilaa iyo maxartay 30 sano waana daba socday haddana ma u maleynaa in sahal looga baxay sidee looga bixi karaa sidee uga baxeen yarar Yurubyaan adduunka oo dhan qabiil waa la soo wada maray qof waliba awow ka dhashay waxay ogaadeen in awowaha dhintay inuusan wax u tareenin qofka hadduu ka imaaday Aasiya asalkiisa ama Yurubyaan ama Afrika inay muhiim tahay xaaladda maanta ku sugan shakhsiga Soomaaliyeedna waxaa muhiim ah haddii awowgaagii tobanaad 1800 meesha ku yimid ay qiimo wax weyn ay ku tari karin maanta kan ku baahi tari kara iyo meesha ku sugan tahay iyo waxa tahay iyo diintada muhiim ah haddaba sidee uu baxay waxay tahay qof waliba qabiilka sidoo waxyaabo uu qaban lahaa oo dhan qaran ay sameysteen qarankii ayaa iskale qaranka ayaa wax walba baahi tara shacabka haddii مثلا dhibaato ay timaado amniga Soomaaliya waxa laga yaabaa haddii la isdagaalo ila leeyahay gabar reer hebel ayaa la garaacay ama nin reer hebel ah familkii ama qabiilkii laga rabaa inay istifaacaan ama ay ka diya qaataan waxa laakiin haddii uu qaran jiro qarankaasna cadaalad uu yahay qof waliba ma u baahna inuu qabiilkiisa u cararo markii shaqo helayo ma u baahna inuu recommendation haddii ay timaado wadamadan qofka hooyadiisi aabihiisi markuu 18 sano gaaro waxa laga yaabaa xataa inuu dhaqaalaha uusan ku tirsanin jaceelku uu qabo way jirtaa laakiin in noloshiisa private-ka uu bilaabo qaranka ayaa la wareegay marka haddii la dhiso qaran ka fikiri kara waxyaabaha inta resources aan haysano haddaan xoog saarno shacabka sidii ay uga kaaftoomi lahaayeen ku tiirsanaanta qabiilka iyo awowaha oo loo sameyn lahaa maalka sida diinta loogu sheegay wax qaranku leeyahay oo shakhsi kasta Soomaali ku hadla leh baasaboorka Soomaaliya qaatay inuu xaq u leeyahay irrespective meeshu degay ay meeshu yimid iyo lahjadu ku hadlo markii taa la gaaro waxa imaanaysa qof wuxuu isweydiinaa way maxaa uga baahnaa inaan iraahdo reer hebel baan ah ma u baahni maxaa yeelay haddii aan rabo shaqo waxaan heli karaa anigoon qabiil sheegin haddaan rabo difaac askar iyo maxay dhahaan ciidamada asluubta ciidamada askarta ciidamada difaac ayaa joogo difaaca haddii maxkamada ay timaado ma laga yaabo laabnin timaado maxkamadii waa cadaalad dadka markay arkaan muraayada ay ka dhex arkaan in wax walba ay u baahan yihiin qabiilka wuxuu qaban lahaa wax ka fiican uu qaranka uu qabto dadka aqoontooda la dhiso ودadkii ay ogaadaan in ay maxaa tahay in muhiim ay tahay waxa imaanaysa in qarankii
awooddiisii iyo qiimihiisii inuu yidhaahdo qaranka ama dowladdana yani waxaan ka wadaa waddankana inuu noqdo waddan qiimo leh maxaa tahay iyo dadaalkaaga iyo diintaada iyo horumarkaaga baahidiina laga wada baxo maxaa yeele baahida waa cadowga ugu weyn oo dadka isku dari karta ma ahan qabiil iyo qabyaaleed waxyaabaha o dhan jaahilnimaa keentay marka waxaa muhiim ah dowlad walba la dhisayo xisbiyaa soo baxaya inay xisbiyada ka fikiraan inaysan ka fikirin 4 sano maxaa samaysaa warshada waa dhistaa shacabka sidii ay wax baran lahaayeen in caruurta dhalinayso sidii looga saari lahaa in si loo heli lahaa dhaqaale ha qabtiri kara dadka oo dhan in shaqal sidii loo abuuri lahaa maaragtay oo waxaa la baabi'i lahaa arrimahaas iyo arrimo badan insha allah kama daali doona dhammaanteena waan sii gudbin doonaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu